kulan wacan daawadayaal halkan waa xanta wararka ku soo dhawaada warar falanqeyn warbixin aanu baahino waxyaabaha daabada wataan waxa kamid noqon doona yaa ku soo baxay kursigii Maad Maxamed Salaad agaasimaha iminka Niza ee la doortay waxa soo gudbin doona warbixin aanu amuurahaasi ku falanqeyn doona haduu alweyne u qadaro awdal Somaliland waqooyiga Soomaaliya waxa lagu dhawaaqay dibadbax ama banaanbax la xiriira xasuuq ay geysteen ciidamadii SNM ee hadda Somaliland magac ahaan huwan waxa soo gudbin doona warbixin amuurahaasi ku saabsan xilli Somaliland ay u muuqato inay wajahayso kala furfurasho gobolada iyo deegaanada iyo qabaa'ilada ee maamulkaasi kol si horeysa ku midoobay magaca Somaliland waxa soo gudbin doona dowladda federaalka ee Soomaaliya kumanaan askari ay si qarsoodi ah tababar ugu dirtay Eritrea iyo dalal kale waxa soo gudbin doona warbixin amuurahaasi ku saabsan oo barnaamijkan ku falanqeyn doono kuna faaqidi doono hadduu alweyn raalu ka noqdo daawadayaashii saaxiibada sida tooska ah halkan inagu xirano soo dhawaada daawadayaal ku biira oo kamid noqdo daawadayaashii inagu xiran si aad qayb uga noqotaan wararka falanqeyntii warbixinada halkan aynu ku baahino daawadayaashii inagu xirano adigoo ku maasan inaad barnaamijkan nolol gareyso oo aanu ka codsanayno daawade mar kale kulan wacan ayaan hawdii kaleena ku maasantaa la socoshada barnaamijkeenan iyo la jaanqaadkiisa yaa ku soo baxay kursigii Maad Maxamed Salaad taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niza kaasi oo kursi horeysa kursi xildhibaan uu ku soo baxay dib loo dooran doono sabab la xiriira amuuraha ku saabsan inuu qabtay kursiga hay'adda Niza ama kursi hay'ad amni taasi oo alaaba dhanka sharciga markaasi kursigiisa dib loo doorto keenaysa ama inuu ka dhaqaaqo haddaba magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxa maanta lagu qabtay doorashada kursi kamid ah golaha shacabka kaasi oo sumadiisu uu ahaa Hob 147 kursigan ayaa waxa hore u baneeyay Maad Maxamed Salaad oo muddo ku fadhiyay kadib markii loo magacaabay xilka agaasimaha guud ee hay'adda Niza doorashada kursigan oo aan loo gelin tartan adag ayaa waxa ku soo baxay Ilyas Sheikh Ahmed Ibrahim kadib markii ay tanaasushay Aamina Tahliil Warsame oo la tartami lahayd natiijada soo baxda ayaa ahayd mid markaasi la filayay sidaan horay markaasi barnaamijyadeeni hore idinku baahinay maadaama kursiga markii hore loo xiray ninka ku soo baxay ee Ilyas Sheikh Ahmed kaas oo garab weyn ka helay taliya Maad Maxamed Salaad sidoo kale waxa uu taageero buuxda hay garab istaa ka helay jufada kursiga leh taas oo u saashay in ugu dambeyn uu ku soo baxo Ilyas sidoo kale wuxuu hore u ahaa madaxii hay'adda NRC ee dowlad goboleedka Galmudug kursigana wuxuu noqonayaa kii ugu horeeyay ay doorashadiisa qabtaan gudida ku meel gaarka ah ee gudida ku meel gaarka ah Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre magacaabay in la soo buuxiyo kuraasta ka banaan baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya tan iyo markii la magacaabay gudidan ayaa waxa soo baxay eedeymo la xiriira inuu yahay mid dhinac ka raran oo adeegaya danaha musharax gaar ah si kastaba madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa si weyn loogu xasuustaa in muddadii uu banaanka ka joogay Villa Soomaaliya aad ugu dhaliili jiray madaxweyne Farmaajo inuu musuqmaasuqay kuraasta baarlamaanka gaarkood haddii ay arintan markaasi waa talaabooyinka hore markaasi loogu eedeyn jiray iyada oo doorashadaasi ay markaasi joogeen xubno golaha shacabka ka tirsan sida Cabdixakiin iyo mudanayaal kale oo golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan geesta kala daawadaasha halkan sida tooskan ugu la socdo dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay kumanaan askari u dirtay si qarsoodi ah dalkaasi Eritrea dowladda Soomaaliya ayaa kumanaan askari u dirtay dalal dibadda ah si ay u xoojiso ciidamada xoogga dalka oo dhismo uu ku socdo dagaalna kula jira al-shabaab sida uu sheegay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheikh Ali oo wareysi siiyay warbaahinta ku hadasha afka codka Ameerika wuxuu sheegay in Soomaaliya ay dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay 3,000 askari midkiiba u dirtay dalalka Eritrea iyo Uganda la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya wuxuu sheegay in 6,000 askari oo dheeraad ah loo diri doono dalalka Itoobiya iyo Masar tiradan ayaa ciidanka loo diray Eritrea iyo Uganda iyo kuwa la qorsheeyay in tababarka loogu qaado Masar iyo Itoobiya ay gaarayaan 1,200 askari waxaan rabnaa inaan dhameystirno diyaarinta 15,000 askari sanadka 2023 ayuu yiri la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheikh Ali sida aynu ogaanayno intii ay socotay soo daabulidda ciidanka laga keenay dalka Eritrea ee tababarka soo dhameystay dowladda keentay Muqdisho waxay Eritrea ku celinaysay ciidan kale oo cusub oo tababar loo diray kuwaas oo laga qoray Muqdisho warkan ayaa imaanaya iyadoo warbixin uu soo saaray macadka Heritage ee daraasaadka siyaasadda uu shaki galiyay in dowladdu ay buuxin doonto bisha December 2024 qorshaha la doonayo inay ku hesho 24,000 askari oo diyaar u ah
inay la wareegaan mas'uuliyadda amniga guud ee qaranka. xilligaasi waxaa qorshaysan inay dalka isaga baxaan ciidamada howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya jooga waa ADMIS. jadwalkan waa mid markaasi hami weyn leh sababtoo ah laama amniga Soomaaliya uma badna inay si buuxda ay u madax banaanadaan waqtigaasi. sidoo kale uma badna in al-shabaab laga adkaaday ciidan ahaan ayaa lagu yiri warbixinta Heritage. afyar cilmi oo ah agaasimaha fulinta ee macadka Heritage ayaa isna yiri waqtiga kama dambaysta ah iyo xaqiiqada ah in ciidanku ku jiro dagaal isla markaana dib loo dhisayo waxa ku doodaynaa inay tahay waqti aad u kooban way adkaan doontaa in la kulmo ayuu yiri afyare oo markaasi professor arrimahaas falanqeeya warbixintu waxay xusteen bishii November ee dowladda Soomaaliya ka codsatay ADMIS inay dib loo dhigo dhimista ugu horeysa ee 2000 oo askari oo 6 bilood laga bilaabo December 2022 ilaa June 3 sanadan aynu ku jirno. cali waxa uu sheegay in dib u dhacaan loo codsaday in ciidamada Soomaaliya ee howlgalka ADMIS kala wareegi lahaa goobaha ay joogaan. cali waxa uu sheegayaa in dib u dhacaan loo codsaday in ciidamada Soomaaliya ee howlgalka ADMIS ay kala wareegi lahaayeen goobaha ay joogaan ay ku maqan yihiin tababaro dibadda ah. sidoo kale wuxuu sheegay in dawladdu aysan doonayn inay carqaladeyso howlgallada militari ee ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolada dhexe ee Soomaaliya maadaama goobaha ay ka baxayaan ciidamada ADMIS ay tahay inay la wareegaan ciidamada Soomaaliya. ciidanka ADMIS ayaa intiisa badan ka howlgala koonfurta Soomaaliya halka ciidanka qaranka u muuqda mid aan markaas qaybsamin wuxuu giisu ka dagaalamayo gobolada dhexe ee dalka halkaas oo ay ku weeqeen awoodda al-shabaab. haddii ciidamada xoogga dalku ay ku guuleystaan inay al-shabaab ka wada xoreeyaan Hirshabelle iyo Galmudug howlgallada lagu baacsanayo kooxda al-shabaab wuxuu ku fidi doonaa koonfurta dalka oo ADMIS ay ka howlgasho taasi oo ka dhigan in ciidanka qaranku ay tartiib u hanan doonaan amniga dalka. balse dhinaca kale waxaa isguraya waqtiga uu dowladda Soomaaliya waxa laga doonayaa inay diyaariso ciidan qaran oo ADMIS kala wareega amniga dalka inta aan la gaarin waqtiga lagu ballamay oo ah dhammaadka sanadka 2024 si dalku uga gudbo qiimeynta lagu sameyn doono sida markaasi iminka la fahamsan yahay. qaybtii dambe barnaamijka ayaan joognaa Somaliland way ku fakacaysaa marka loo qiimeeyo tallaabooyinka qabaa'ilada iyo goboladu ay isu bahaysanayaan ay ka dhanka ah Somaliland. awdal waxa loogu dhawaaqay banaanbax la xiriira xasuuq kol hore ay geysteen ciidamadii SNM ee jabhadihii Soomaaliya markaasi ka jiray ee la diray dawladii hogaaminaya Siyaad Barakat kamid ahayd. sidoo kalena iminka magacahan huwan Somaliland magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa laga dhawaaqay banaanbax looga soo horjeeda hadaba xasuuq ay ciidamadii jabhadda SNM ee Colonel Muuse Biixi oo hadda ah madaxweynaha Soomaaliland ay ka geysteen gobolkaasi 1991. guddiga gabanqaabada banaanbaxan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay isku soo baxaan ay cilaameen loogu duceynayo dadkii ay laayeen ciidamadii SNM kuwaas oo ay ku tilmaameen shuhado. banaanbaxan ayaa waxa uu markaasi ka qabsoomi doonaa magaalada Boorama 4 bisha Febraayo sida ay sheegeen guddiga gabanqaabinaysa isku soo baxan. dhammaan waxa ugu baaqeynaa bulshada gobolka Awdal meel kasta oo ay joogaan inay ka qayb qaataan oo ay xusaan maalinta shuhadada ku beegan 4 February. sidoo kale waxa ay markaasi aan aad ugu baaqeynaa aqoonyahanka ama ugu baaqeynaa aqoonyahanka macallimiinta ardayda hooyooyinka iyo dhammaan dhalinyarta inay markaasi isugu yimaadaan dhigtii Boorame halka ay ka dhacday halkaas aan markaasi ugu duceynayno shuhadadeena ayaa lagu yiri. bulshadu waa inay isugu yimaadaan 9 subaxnimo goobta loo asteeyay. qof kasta oo reer oo wadala waa inuu ka soo qayb galaa banaanbaxan ayna ka qayb qaataan baaqan banaanbaxan oo looga soo horjeedo xasuuqa ay geysteen Somaliland ama SNM ayaa sidoo kale waxa ka qayb ah mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka oo ka mid yahay xildhibaan Ayuub Ismaaciil Yuusuf oo ka soo jeeda gobolkaasi Awdal. xaaladda noqoto mudanahaasi golaha shacabka waxa uu soo qoray 4 February waa maalintii SNM oo wadatay ciidamada dhargigu ay xasuuq baan ka geysatay dhammaan gobolada galbeedka. waxaan dadkaasi ilaahay ugu baryeynaa inuu ku baxay gacanta ku xaq daran inuu joojinooyinkiisa ku casuumo. amiin ayuu yiri mudanahaasi golaha shacabka ka tirsan. wax wara oo ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka gobolka oo la xiriira banaanbaxan la cilaamiyay ma jiro iyadoo dadka qaarkood ay walaac ka muujeen isku soo baxan inuu markaas isku bedelo rabshado hor leh. maaha kolkii ugu horeysay banaanbax noocaan ah looga dhawaaqo magaalada Boorame iyo guud ahaan Awdal
hase yeeshee waxay xilligan ku soo aadaysaa iyadoo kacdoon looga soo horjeedo Somaliland iyo hoggaankeedu ka taagan yahay laascaanood taasoo ay u maara weyday xukuumadda. Inta ayaa ku dhaafnaa ilmaamin aad la gareeso aad shir gareysada wade.